بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السلام يا جماعة وناكسن ميل كستا جوجتان أنغو نبضون بيش به مرسده أنغو waxaa la yiraahdaa Cabdi Salaam Axmed Gabayre Suunac ayaa la yiraahdaa waxaan taageero u fidreynaa musharax Maxamed Cabdulla Faarax xildhibaankii hore federaalka habarwadadan mas'uulka u ahaa xiriiriyaha siyaasadda iyo beesha oo isku xiriirin jiray beesha iyo dawladnimada shacabka hadduu san helin xildhibaan wanaagsan oo ku xiriiriya siyaasadda wax badan ayaa ka maqan qarnimada lug ayaa go'an beesha habarwadeen waxaan leeyahay indhaha fura maskaxda fura inkastoo beesha habarwadeen ay wax badan hadda halgankiisa oo yacni cad yahay xildhibaan Maxamed Cabdulla Faarax oo uusan haynin hadda la baranayo oo muddo badan soo shaqeynayay oo ay joogaan sanano ciidaa ka badan saraakiil dhexe kuwa sare kuwa hoose iyo kuwa badan oo ah saraakiisha shicbi yacni rayidka oo la yiraahdo waa ayagu waa horumar beeshay gaartay waxaa jooga jaamiciyaal badan waxaa jooga ganacsato badan waxaa jooga culimaadudiin badan oo yacni maanta fahmaya wax badan iyo beesha habarwadeen taageeradeeda iyo midnimadeeda meeshii u qaado inaanay meel yacni ahayn meel caadi inaysan ahayn waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed inaan haysan beelahan aysan beeshaan ahayn dadka geesasaarka lagu liso ay tahay beel yacni codkeeda la bixi karta meesha ay doontana taageeri karta inay tahay ma aha beeshaani beel inta la geesasaaro la liso oo siyaasad ahaan lagu geesasaaro caanaha laga maalo ma aha waa beel halgankii qayb libaax ku lahayd waa beel caan ah oo la yaqaano oo aan ahayn dadka yacni hadda iscaan bixinaya aan ahayn beesha habarwadeen wax badan ayaa laga yaqaanaa waxaa ka mid ahaa halgamayaashii USC waxaa ka mid ahaa halgamayaashii kale oo diinta waxaa ka mid ahaa halgamayaashii kale oo dawladnimada qaybta libaax ka soo qaatay waxaa ka mid ah ciidamada hadda garab taagan dawladnimada garab taagan oo meel kasta taagan awoodda ay ku leeyihiin marka waxaan leeyahay beesha codkeeda meelshii cidii aragtaaba inay tixgeliso oo aysan ku xadgudbin ayaan horta u soo jeedinaynaa waxaan leeyahay beesha ayaa waxay tiri waxaan nahay duul muslima dalkooduna oo ku yaal dunida dacalka Afriko dadnimo Soomaaliyaho diirkooduna yahay madow mar baan nahay dacar qaraar dab iyo holac lagu gubtaa mar baan nahay dahab iyo malab dusheena lagu gamaa midis dariska waan dhowrayaa damacana laga badan midisa waa iga digniin damaciga soo socdow haddaad gudcur moodidama dayax waa 15 dareenkuna waa fog yahay dardaaran hanoo ahaato sidaas ay leedahay iyaan la isku xadgudbin waa ilaalinayaa yacni dhaqanka iyo siyaasadda iyo sharafka Soomaalidu waa ilaalinayaa anigana yaa leegu xadgudbin ay leedahay beeshu waxaa kaloo aan leeyahay aniguna saas beesha ayaa tiri aniguna waxaan idhi ficil laga dugsado iyo doofaar abaal ma leh bisadana ficil laga dugsado iyo doofaar abaal ma leh bisadana dekeeyay haddaasi sadaqa iyo hilbaahtii u dooron rafirtay ma moogtahay dameerkana sidiisaba haddaad siisa wax wadana xaalkii dambaabiro ku dilaysa weeye waxaas ku dilaysa weeye wala doorki maan tegin waa dardaarankaygi wali doorki maan tegin waa dardaarankaygi duul kastoo maqla yacni barnaamijkan arka taageerada Maxamed Cabdulla Faarax arka inay beeshan ku xaq dhowraan ayaa saasaan ka codsanaynaa kuna soo dhaweynaynaa annaguna sharaf ayaa kula shaqaynaynaa ugaasyada iyo malaaqyada iyo wabarrada iyo dad kasta oo waxgarada siyaasiyiinta iyo dadka dhaqanka intaba waxaan ku tixgelinaynaa yacni sida ay codkayga u tixgeliyaan adduunku waxa weeyaan qofkii ku tixgeliya oo ku wanaajiya adoo wanaajinaysaa qofkii kula dagaalana waa la dagaalaysaa damiirka wanaagsan ayaa sidaa qaba wanaag ayaa lagu yaqaanaa beeshan waxaa lagu yaqaanaa gobonnimo iyo soo marka barnaamijka qaybtii labaad waxaan ku wareejinayaa aadan faarax absuge oo ah nabadoon kale asuguna ka mid ah
beelaha nabadoonnada beesha bah mursade kusoo dhawaaw nabadoon aadan faarax cabsuge. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan taageerayaa dib u doorashada xildhibaan geesay annagoo gacan weyn ku siinayna. waxaan leenahay ninkii kursigaan raba geedayo isku dhudhuumin inuu fagaaraha issoo dhigo sida xildhibaan geesay. waxaan kusoo dhaweynayaa beesha iyo waxa soomaalinimada jecel in lagu taageero xildhibaan geesay. wabilaahi tawfiiq.